بعدين waxaan u mahad celinaynaa rugta ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga gudoomiyaha gobolka Banaadir oo rugta ganacsiga inta kadib cabasho ayaa ganacsatada isku keentay iyo culays jira oo ka jira dhinaca dekada waxa laga cabanayaa ka mid maahan canshuurta dawladda ka mid maahan waxa yimid dad barayfad ah oo si qaas ah raba mataqaanaa inay dano intay dawladda soo dhex maraan inay ka mataqaanaa dukumiintiyaal falsa samaysteen raba inay ganacsatada hantidooda ku boobaan arintaas ayaa mataqaanaa ayaan ka istagoonaynaa oo cabasho ka muujinaynaa waxaan u cabanaynaa marka koobaad rugta ganacsiga ayaan u soo gudbinay kadibna waxaan u gudbinaynaa golaha xukuumadda madaxweyne ugu sareeyo ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo cidii ku shaqo leh arintaas dekadii waxa laga samaystay 5 iyo 6 qol oo qof kasta raba inuu mataqaanaa hanti ku qaato oo meel ay ka socdaan aan la garanayn dadkaas ma ahan dad wasaaradda maaliyadda ama dawladda ka turjumaya waa dad raba mataqaanaa inay lacag ka dul sameeyaan ganacsatada arrinkaasan marka ka cabanaynaa waxaan leenahay dawladdu si degdeg ah u soo faragelido madaxweynaha ayaa arrinta la gaarsiiyay guddi baa la sameeyay in la joojiyo lagu ballamay way istaagi la adahay dad doonaya marka inay maalmo ku taajiraan oo dadka ku dhibaateeyaan oo hanti aysan hayn qaataan waana corruption waxaana ugu horeeyo number 1 ka ah kabaniyalka shiibinka qaybahooda qaybo kamida oo u horeyso Maskalayr waxay kordhiyeen lacagtii deliver order-ka ahaa ayay waxay ku darsadeen $32 oo kabaniyalka kale aysan qabin waxay keeneen masana inay dadkii ku ijbaaraan ku qasbaan kabaniyal qaas ay la soo shiyeen oo ganacsataa oo waxaan samaysanaya oo lacagta corruption-ka qaadanay ayaa waxaan u arkaynaa inay commission ku leeyihiin sababtoo ah waxay dadkii ku qasbayaan inay lacagta bixiyaan oo alaabta dibadda mataqaanaa lagu xanimo oo leeyihiin mataqaanaa wax la soo qaadi ma halkaan wax laga bixin maayo arrinkaas marka waxaan uga digaynaa shiibinada qaasatan Maskalayr in laga digtoonaado ganacsataduna inay si gooniyo kabanigaas isha ku hayso waxyaalaha noocaas oo corruption-ka ku dhaqaaqay ayaan ka digaynaa waxaan mar labaad iyo mar koobaad mataqaanaa mar koobaad iyo marka labaad u gudbinaynaa mataqaanaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha arrinka inay si degdeg ah u soo fargeliyaan waxay noqotay in badakada alaabta laga soo saari waayo dad shibilisa mataqaanaa oo nala mida inay lacagna dul saartaan oo soo samaystaan dukumiintiyaal arrinkaasan maanta mataqaanaa ganacsatada isugu timid culayskaas haysta way ganacsan waayeen alaabtu waa la soo saari waayay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh